السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة بدن كحرن جنرال كامل تكنولوجي اسكسونا قدو ناكسن إن شاء الله تعالى ما أنتو حين نقاطنا 10 كيشن تبراد إنكو برنا داتابيسكا خاصة لغة SQL إن شاء الله تعالى 10 كاين ما أنتو حين نقاطنا 10 دياد مهمة بل سنتا نوجد قلنا 10 كا مركو وراي نصوص آخرنا تابل كاين ما أنتو براتك ريدونا تابل كو حلو مقعوا إمبولو 2 وحوكو كومي هاي إلا 4 كولوم employee ID, employee name, iyo salary, iyo address. Soo jeedin ba shaqaalahan wuxuu qaatay lacag balse ma ogaa karno lacagtan marka la isku daro intee la eg tahay cadadkeeda. Yani samka tiradan dhamaan ma ogaa karno. Sidoo kale lacagtan average-keeda ma ogaa karno. Qofka ugu badan oo mushaarka qaato lacagtan ma ogaa karno. Qofka ugu yar oo lacagta qaato ma ogaa karno. Waxaas oo dhan waxa ku ogaa doonaa wax lagu magacaabo aggregation function ama aggregate function. هذا ما aggregation function waa function ku diyaarsan SQL server-ka kaasoo shaqadiisa tahay si data inuu wax ka qabto qayb kamid ah xogta aynu u baahanahay ayuu wuxuu ku qaban doonaa shaqadii aan u dirsano markaas kadib wuxuu noo soo celin doonaa oo kaliya one aggregation value yani data badan ay haystaa markaas sam tirada hal qiimo ay ku soo celin doonaa ama average tirada hal tiro ay ku soo celin doonaa oo loo magacaabo one aggregation value xogtaas wuxuu ka dhigi doonaa marka group data aggregation function waxa loo qaybiyaa ilaa 4 qayb inta ugu muhiimsan count big numberka ugu weyn sum isku darka maximum numberka ugu badan minimum numberka ugu yar iyo average soo kale waxa qaadan doonaa group by aan soo aragno practicada waxaynu ku bilaawi doonaa count iyo count big waxaan dhigi doonaa select all from waxaynu ku bilaawi doonaa count waxaan dhihi doonaa select waxaad ii soo akhridaa count aggregationka sheeg magaciisa kadib star meesha aad geli kartaa sidoo kaleeto meeshaan waxaad geli kartaa column-ka aad ku samaynaysid aggregationka ama countiga taas markaad aadid kadib waxaad dhihi doontaa xogta iyo waxaad ii soo akhridaa from xogta meeshii laga keeni lahaa sheeg table-ka هذا تابل كحكت أنا كسر آخر دونه حلو مع عوا إمبوليو 2 فروم مركز داديد حكت ماشي لقص آخر لا شاك تابل كحكت لقص آخر لها تابل كحكت لقص آخر عنده حلو مع عوا إمبوليو 2 كده بكسكوت جري سو جديد با تابل كلو مع عوا إمبوليو كاونت جيسكا أنت كوجهتو 6 رويس أنا سو آخرنا مركز تابل كاس يعني رأينا سو جديد تابل كوحا كوجهتو إلى 6 رو كو لابو سدح أفر شن لح مركانو دهنو count أما count big وحويسو دير دونا انت رو كجرتو بدنا waxa loo isticmaalaa marka la galayo imtixaanka ardayga inta maadu galayo waxa loo isticmaalaa count waxaynu gudbi doonaa qaybta xigtay 10keena oo ah sum isku darka sumka waxaanu isticmaali doonaa column-ka lagu magacaabo salary يعني waxaan sameyn doonaa xisaab xir hal bil ama sanad ayaa waxa baxday qarashkan ayaa naga baxay hadaba mise ayuu leeyahay isku darka qarashkan waxaynu dhihi doonaa sum marka hore comment ayaan soo doonaa si u fahantiin sum dib waxaan dhihi doonaa select waxaad soo akhridaa sum aggregation sheeg aggregation waa badan yihiin kadib column-ka aad aggregation ku sameynaysid sheeg column-ka waxa lagu magacaabaa salary markaad ahdid xogta inta laga soo akhri doonaa xogtan waxa ka soo akhridaa employee 2 soo jidiba column-kan salary lacagtan baxday marka la isku daro qiimaheeda waxay la eg tahay 3475 hadaba arkaysiin aggregation-ka sum suu muhiim ugu yahay waxaan isu gudbi doonaa qaybta xigtay 10keena waxaan ii saari doonaa comment وماكسيمم iyo minimum max iyo minimum waxaan dhihi doonaa select waxaad soo akhridaa kadib aggregation-ka sheeg hadda waxaan dhihi doonaa max markaad tiraahid column-ka aad max ku sameeyay sheeg salary kadib intaas markaad raadid xogtan meesha laga soo akhri doono sheeg xogta meesha ku taalo xogtu waxay taalaa employee 2
employee 2 عفوا kadib isku garay wuxuu noo sheegay column-ku lagu magacaabo salary mushaarku ugu badan qofka qaato waa 900 aynu soo xaqiijino table-ka inaan soo akhrino table-ka lagu magacaabo salary qarashka ugu badan waa kana 900 qof ugu badan oo lacag qaato wuxuu qaataa 900 aynu aragno qofka ugu yar ugu mushaarka yar meeshaas ayaan waxaan ka dhigi doonaa oo kaliya minimumkii maximumka wax ma kala duwano agreeshka bisbedel qofka ugu yar oo mushaar qaato waa 350 ayuu qaataa aynu soo akhrino xogta sawji dib waa kana qofka ugu yar 300 wuxuu qaataa 50 waxaan ugu badan 900 waa aragtay muhiimadda noo leedahay aggregation function ka sum iyo minimum ciwaankan xog wuxuu sii noqon doonaa average lacagtan aynu bixinay sanadka ama waxa ay bisha xisaab xirka markaanu sameynayno average boqolkiiba imisa ayaa naga baxday ama sidoo kale waxaad isticmaali kartaa haddaad joogtid imtixaan ama haddaa haysid ardayda daatadooda ama imtixaankooda average ko isticmaali kartaa balse waxaynu haadnaa anaga lacag ayaanu haynaa kimbinaynu joognaa waxaynu bixinay qarash kadib lacagta naga baxda average ahaan meeqay la eg tahay waxaynu dhihi doonaa select average kadib select waxaad isoo akhridaa cafwan select waxaad soo akhridaa average avg loo soo gaabiyaa kadib column-ka average ku sameynaysid sheeg column-ka average ku sameynaa waxaa lagu magacaabaa salary intaas markaad sheegtid waxaad sii dhihi doontaa xogta meesha laga keeni doono xogtan waxaa laga keeni doonaa column-ka lagu magacaabo employee 2 kadib aynu garayno average-ka execute 579 ayuu la mid yahay average-ka 579 wuxuu ka yimid lacagta aynu haysano dhammaan marka la soo daray loo qaybiyay 6 oo la mid ah countiga intaan marka la soo daro kadib waxaad u qaybidaa 6 oo la mid ah inta row aynu haysano si totalka loo xisaabi jiray waxaynu sii gudbi doonaa ciwaankan xigo group by haddaba sida loo sameeyo group by waxayna dhihi doonaa comment marka horeeto group by group-ga waxaanu ugu faa'iideysan doonaa cashirka haddana soo qaadanay aynu kusii dabaqi doonaa si uu cashirka macno noogu yeesho samkana aynu ku dabaqi doonaa minimum iyo average iyo every aggregation ku dabaqi kartaa anaga hadda sam ayaan ku dabaqi doonaa waxaynu dhihi doonaa select waxaad soo akhridaa employee name shaqaalaha magacaashooda intaas markaad dhahdid waxaynu ku dabaqi doonaa sam markaan dhahno column-kii sam lagu sameynayo cashirka hadda le waa sam salary kadib intaas markaan dhahno xogtan intaa laga keenaya from xogtan waxaa laga keeni doonaa employee 2 intaas markaan dhahno employee 2 kadib hadda waxaynu sameyn doonaa group by waxaynu dhihi doonaa group by markaan dhahno column-kan u group garay doono yacni sida noogu group garay doono column-ka lagu group garay doono sheeg hadda column-ka anaga aynu u baahanay inuu noogu group gareeyo waxaa lagu magacaabaa employee name waxaa shardi ah column-ka aad ku group garay doontid waa inuu kor ku jiraa hadda marka horeeto waxaanu soo dhahnay employee name soo akhri kadib waxaan dhahnay waxay u group garaysaa employee name intadaan dhahno column kaleeto nagama yeeli doono aynu isku garayno hadda waxaa la rabaa magacaashii inoo soo baxaan iyo salary-gii weliba iyagu group ah oo kala horeeyo order ah soo jeedib waa kana sida loo kala wan yahay inuu group gareeyay magacaashii noo kuwaan noo soo akhriyay Faadumo Maxamed Nasro Yaxya Cali insha Allahu taala maanta cashirkan inta ayuu nagu ogyahay fadlan haddaa nagu cusubtahay nagu soo biiro channelka subscribe noo saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.